Soomaalida waxaan ku nahay astaan noo ah ganacsiga. You allow me to speak in Somali for 1 minute or two. I'm not saying anything bad. I'm just encouraging them in their language. Waxaan caan ku nahay oo astaan ku leenahay inaanu ganacsatanahay oo muruqanaga iyo maalkanaga iyo maskaxdanaga aan aamino. Shaqo sharaf leh soo ma dhahanaba. Meel badan oo tagnana ganacsiga waan ka muuqanaa. Duqii Trump hadda nagu dhagan. Wuxuu nagu dhagan yahay wax kala ma. Waxaan nagu dhagan yahay waa muuqaalka. Meesha Afrikaan fara badan baa jooga oo malaayiin ah. Soomaali oo boqolaal kun ah baa la dalbacsanaya wax loo ordayana waa ganacsiga aan ku jirno. Cid aan marti ooga nahayna meesha iyada ma leh. Nin walbana meesha soo masalihiisu watuu tagay. Asaga naftiisa awgiis baa meesha tagay. Trump himself is an immigrant to the US. His granddad was there. I mean, went there. So everybody there, literally, except the natives, are immigrants. So, waxa laga bacsanay waa ganacsigaas. Intana waa sidoo kale. Hadal haynta Soomaalida la hadal hayo waa ganacsigaas aynu ganacsano oo muruqana iyo maalkana iyo maskaxdana aan aaminay. Isliin wax badan baynu gashanay. Meelo badan oo wadankan kamid ah ganacsi waan gashanay. Hadda meeshaas ay ka shidan tahay. Ma la yiraahdo Tattoo City. Bay ka shidan tahay amal gashanay sharaa'ada City.